السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada akhyaarta kusoo dhawaada channelkeena Somifest. muuqaalkan maanta waxaan rabaa in aan si guud idinka warramo iyo si gaar ah shirkadda FTMO oo soo kordhisay adeeg cusub oo akoonadeeda ku saabsan kaasoo ah one step challenge. haddii aan yaro hordhaca ka bixiyo shirkadda FTMO waxay tahay brofimyadii ugu horreeyay ama aynu oran karnaa tii ugu horreysay iminkana ugu caansan oo aan suuqa laga qaadin taasoo la furay 2015. waxaynu oran karnaa waana ta iminka uga aaminaada badan. halkan haddii aynu hoos usoo daadegno waxaynu eegi karnaa akoonka ama ay ku leedahay website-ka Trustpilot la dhaho kaasoo dadku si free ah ama si xor ah ay review-gooda uga dhibtaan shirkadaha nooc walba ay yihiin. halka haddii aanu eegno shantii star waxay haysataa 4.8 ayay haysataa waxaanay review gareeyay 38,474 reviews. marka adigu reviewska waad ka bixin kartaa halkan haddaan click siino waana arki karnaa gudaha haddii aynu galo website-kaas dadku waxay ka yidhaahdeen. marka halkan waad arki kartaa dadku waxay ka yidhaahdeen waxaas oo dhan bay ka yidhaahdeen waana meel xor ah oo qof waliba uu ku dhiiban karo ra'yigiisa. marka inagoo eegayna waxaasoo dad ah in aanay marna isku raaci karin in ay been ka sheegaan magaalada review-gooda. waxa shirkadani ay tahay ta ugu aaminaada badan ee industry-ga forex trading ku jirta taasoo ay dadka magaalada wax transparent ka iibisa. waxaa la aasaasay 2015 11 sano ka badan ayay jirtaa. maanta waxay soo kordhisay adeeg one step challenge ah. akoonada bixin jirtay two step challenge buu ahaan jiray laakiin waxay soo kordhisay adeegan new-ga ah ee one step challenge-ga ah. halka kan baa jiray oo hore u jiray kan haddii aynu ku dhufanno aynu isaga soo eegno marka koowaad waxay bixin jirtay 5 akoon oo kala duwan oo kala saysa kan 10,000 ah kan 25,000 ah kan isagu ah 50,000 kan 100,000 ah oo ah ka ugu caansan iyo kan 200,000 ah oo ka ay dadku lacag ugu badan ay ka sameeyaan ah. halka haddii aynu saaxiibayaal aynu hoos sii raacno halkan USD baynu ka dhiganaynaa dollar maadaama lacagta ay doolarna u eegayaan ay euro ku bixiyaan lacagaha ay ku iibiyaan fiiga ay euro uu yahay aduu doolar loo bedelan doontaa kadibna waxaad eegi doontaa inta uu doolar ka noqdo intaasaa loo diraa laakiin iyagu euro ku xisaabtaan maadaama ingiriiska ay ka jiraan wadamada Yurub ay lacagtooda euro tahay. marka halkan haddii aynu eegno saaxiibayaal akoonada 10,000 oo kala ah kan iyo kan dhammaantood xaggan shuruucdoodu ka siman yihiin. marka tusaale ahaan profit target-ka maadaama laba akoon oo laba jeer la rabo inaad laba face martid ka koobaad waxa weeye face-ka koobaad waxaa lagaa rabaa in aad 10% aad gaadhid. halkan imika waxaan ugu qoran 20,000 iyo 10,000. 20,000 muxuu ka noqonayaa akoonka 200,000 ah 20% buu ka noqonayaa. 10,000 muxuu ka noqonayaa 5% muxuu ka noqonayaa 10,000. marka halka haddaan bedelo percentage aan bedelo halkan may ka bedeli karnaa show numbers baan oran karnaa marka percentage halkan marka tusaya hadaan rabno in aynu si caadi u aragnaa halkan may ka arkanaa tusaale ahaan dad basaas ku fahma oo hadda aad tirahdid maximum loss waxa weeye 5% haddii aad tirahdid oo akoon 100,000 qaadan 5% ma xisaabin karayo marka 5,000 way. marka halkan inagu sidan baan xisaabinaynaa show numbers waan ka noqonaynaa percentage kan ku eeginaa profit target-ka labada face koowaad waa 10% ka labaadna waxa weeye 5% dhammaan akoonada dhan waa isku mid. maximum loss-ka ama khasaaraha guud wuxuu noqonayaa 5 maximum daily loss-ka wuxuu noqonayaa 5% dhammaantood. maximum loss-ku waxa uu noqon doonaa dhammaantood wuxuu noqon doonaa ama noqonayaa 10%. hoos haddii aan u degno maximum trading days-ka laga rabo in aad akoonka lagu bedelayo face-ka kale waa 4 days weeyaan dhammaantood. trading days-ka waa unlimited weeyaan lagu xadidi maayo akoonka xilliga aad haysanaysid. refundable fee ma leeyahay akoonka two step challenge-ga? yes wuu leeyahay 100% fee-gaagan waa lagu soo celin doonaa marka labada face-ka gudubtid. rewards-ka waxa weeye wuxuu ka bilaabmaa starting halka aad click siisid qoraalkan akhri wuxuu ku leeyahay start with rewards ama profit share 80% uu ka bilaabmaa waxaanu gaadhaa up to 90%. marka
marka balanska kala duwan buraaca halka haddaynu click siino wayna sii tusaya marka 9% 90% up to 90% ilaa iyo way marka 8% way ka badanaysaa 80% priceska oo iyagu one time ah hal mar la bixiyo marka koowaad unaad ku iibsanaysaa akoonkaaga san buu kala duwan yahay marka euro ahaan bay ku isticmaalaan euradu xoogaa yar bay doolarka qaalisan tahay marka kan waxaa laga yaabaa 1,080 inaanu ahaan 1,100 gaari karo kan qiimo dhimis wuxuu ku jiraa ka akoonka 100,000 ah ku jiraa qiimo dhimis 9% halka dad ku aragtay best value marka kuwa kale qiimo dhimis kuma jiraan waana ka ugu caansan marka hore waxay siin jireen 540 euro ay siin jireen imika waxay siiyaan 439 euro marka qiimo dhimista aad ka faa'iideysanaysid aday ku jirtaa akoonkan kale isagu waxa weeye 50,000 waxay siiyaan 345 euro kan 250 euro kan 89 euro marka qiimo dhimistaas ay leeyihiin halkan waxaa ku cad iyadana average-ka bilaha lacagta celceliska ugu yaraan iyo ugu badnaan dhexdooda ah average-ka aad ka samayn kartid marka akoonka 200,000 ah waxaad ka samayn kartaa 12,230 waa iyagu wasay magarasa statisticooda uu cadeeyay in akoonada intaas laga samayn karo akoonka 200,000 magarasa average ahaan celcelis ahaan bilaad oran kartaa weekly baad oran kartaa waxa doontaa oran kartaa kan 100,000 500 ama 600 baa laga sameeyaa marka lacagtan waa euro way ka badan doontaa intan kan 300 gaari karaa marka saas uu soconaya marka waa average ahaan laakiin ma hal lacag lagu xadidayo adaa samaysan kara oo lacagta aad rabtid ayaad gaari kartaa marka iyagu waxa way based on global average reward with FTMO dunida oo dhan celcelis ahaan FTMO akoonada lacagta laga sameeyay celcelis ahaan sababta akoonka 200,000 ah dadka iibsaday globally celcelis ahaan intee ka sameeyeen intaas ka sameeyeen adigu laakiin kuma xirna waad ka yareysan kartaa waad ka badan kartaa haddii aynu eegno hadaba adeega cusbaa ay soo kordhiyeen aynu u soconay waxa weeye kan one step challenge-ga ah waana new isagana akoonadiisa halkan aynu ka eegi karnaa halkan haddii aynu show numbers nahno waad arki kartaa haddii aynu show percentages ayaynu rabnaa markaas shantii akoon ee hore assessiska ay hore u bixin jireen oo dhan bay u bixiyaan akoonka 200,000 baa ugu weyn hoos haddaynu socono profit targetka waxaa laga rabaa iyaga waxa weeye waa 10% maadaama hal face yahay halka face 10% aad gaadid akoonkaaga realka ha lagu dhiibayaa maximum daily loss maalinkii waxaa laga rabaa inaad 3% aad khasaarin halka kii hore uu ahaa 5% labada face marka waxaa laga rabaa in xadidaad badan baa lagu saaraya maximum loss-ka iyaga waa isku mid waana 10% labadaba maximum loss-ka laakiin halkan mid ka akhri doonaa halkan aad click siisid waxaad arki doontaa qoraalkan baad akhri doontaa marka ha ku cad in ay tahay trailing limit inay tahay salahan akoonkaaga in markasta uu 10% yahay dad 5% xataa ku dartid 10% inaad khasaartid lama rabo marka waa laga ilaalinayaa trading days-ka waa unlimited waa la midkii hore kale adeegan kale u dheer yahay ama rule-kan kale u dheer yahay kaasoo la yiraahdo best day rule marka halkan haddaynu qoraalkan eegno aan dib u akhrino waxaa lagu leeyahay your most profitable trading days best day must not account for more than 50% of your total profit marka waxaa laga rabaa in aanad 50% boqolkiiba 50 in aanad faa'iido ah oo akoonkaaga ah boqolkiiba samayn karin yani tusaale ahaan bay dadku wax ku fahmaaneen akoonka 100,000 ah waxaa laga rabaa hal maalin inaad 50,000 oo dollar aad ku darin soo ma cadda taasna kole cid samaynaysa cid gambling samaynaysa mooyaane cid kama samayn karto marka waa rule aad u adag rule de yani waxaan oran karnaa 50% kaasi waa rule aan de qofna gaari karin oo magaranaysa aan la jebin karin qofka intaa gaarada macquul ma aha ma iman karo akoonkiisa boqolkiiba 50 maalin kaliya ku dari kara aqli ma laha aqli wuu leeyahay laakiin waxaan leenahay aqli kuma sareynin markaas rule-kaasina waa jira marka tusaale ahaan waxaan soo qaadanaa akoonkeena 100,000 ah qof akoon 100,000 iibsaday hal maalin 50,000 oo dollar kuma dari karo yani waa gambling baa la xisaabinaya strategies aad u waalan reward-ka ama profit share-ka waxa weeye waa 90% halkii hore 80 uu kasoo bilaabmayay kan 90 baa markii lagu siinayaa maadaama rules-ka qaar iyagana lagu yara liicay
waxaa loo kordhiyey profit shareka. Feega haddii aynu eegno one time fee, lacagtan waa euro 990 euro 990 euro kale 1000 buu dhaafayaa, waa one time ah. laakiin waxa aanu lahayn waa refundable fee baanu lahayn. ka hore wuxuu uga jaban yahay kan refundable fee ma laha. kan waa akoonka 100 kuna waxa waa 500 euro la iska oran karaa, 319 euro 190 euro 79 euro. marka percentage-ka ayay ku xiran tahay, yani waxaan leeyahay wax ku xiran tahay dollarka, hadama euro ahaan ku qorato euro ka qaalisan tahay dollarka, way ka yara badnaan kartaa intan oo dhan. mid baan rabaa marka inaan idin sheego, midkaan idin sheegaya waxa weeye shirkadani horta qof Soomaaliya gudihiisa jooga ma aqbasho. haddii aad rabtid in aad akoon ka iibsatid waa in aanad joogin Soomaaliya gudaheeda. waa anu ma sheegin hadduu qof dibadda jooga aad adigu lacagta bixsatid oo magaranaysa kuu furo oo qofkaasi kuu hayo, annaguna magaranaysa aan kula baasino, taa ma sheegin. laakiin sharciga koowaad waxa weeye Soomaaliya gudaheeda qof jooga horta ma aqbalaan. laakiin ta kale aan kuu sheegaya waxa weeye baasaboorka Soomaaliga iyo ID-ga Soomaaliga way aqbalaan. haye wadan dariska ah haddaad joogtid ama wadamada kale dunida, laakiin sharci Soomaaliya aad sidatid, akoonka waad ku furan kartaa, wax dhiba ma laha, waad ka shaqaysan kartaa shirkadan. waana shirkada ugu aaminaada badan. haddii aad haysatid sharci wadan kalena waad ku furan kartaa, waana samaysan kartaa. qodobka kale aan kuu sheegaya waxa weeye haddii aad rabtid inaan kula baasino, waxaad samayn doontaa marka koowaad waa inaad adresskiida aad joogin adigu, akoonka waa inaad ka furatid, kadibna waa inaan kula baasino. marka waad nala soo xiriiri doontaa. akoonada waaweyn dhaqaale aad waalan ba laga sameeyaa, 50,000 100,000 dadka qaar baa akoonka 200 kuna dhowr bilood 100,000 ku sameeyo oo faa'iido ah. marka saaxiibayaal, waxaan rajeynayaa in aad iska diiwaan gelin doontid linkiga shirkadda aan dhigi doono commentiga koowaad. haddii aad rabtid inaad nala soo xiriirtidna WhatsApp-ka commentiga koowaad yaa naga soo xiriiri doontaa. sidoo kale waxaad soo biiri doontaa Telegram-keena Somifest oo iyaduna linkigeedu uu yaalo commentiga koowaad. waxaan rajeynayaa sidoo kale in aad akoonka ama aad YouTube-ka subscribe noo saari doontid, muuqaalkana aad like soo ri doontid, commentigana wixii su'aal aad qabtid ama faalla ah ama dhiirigelin ah noogu soo qori doontid. channelkani wuxuu fulan yahay dhammaan traderska Soomaaliyeed inuu caawiyo, inuu ka caawiyo wax kastoo suuqa ku saabsan. waxaan rajeynayaa adna in aad nala korin doontid insha Allahu tacaala. sidoo kale inaad Telegram-keena kusoo biiri doontid, kaas oo dadka oo dhan ay ku jiraan, dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee traderska ah. hoostan baynu soo degnay, halkan baynu nimi, lacagaha laga sameeyey akoonkan 120,000 buu qofkani hal mar la baxay. hadaynu eegno kole waa lagu sii dhufanaya, laakiin nagu sii dhufan mayno. marka halkan bay ku qoran yihiin dhammaantood. marka saaxiibayaal, waxaan rajeynayaa in aad muuqaalkan like noo saari doonto insha Allah. Telegram-kana nagala soo xiriiri doontid iyo WhatsApp-kaba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.